شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد waxaan baraarujinaynaa walaalayaal oo fariinteenana ay tahay carabkeenaasi mar walba uu nagnagleeyaho ma joogsanayo, marka wax aynu ku faraxno maalinta qiyaamaha oo khayr leh waa inaynu ku hawlgelino. sidaa daraadeed baa nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam laa yazal lisaanuka radban min dikri illaah, carabkaagu yuu daynin kii ka qoyan ha ahaada mar walba xuska ilaahay subxaanahu watacaala. markaa intaad shar ku hadli lahayd khayr ku hadal, markaad istidhaahdo sharka ku hadal ku baraarugo iska taag wixii khayr ah wixii shar ah. rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo arrinta aada inoogu baraarujinaya wuxuu tilmaamay kelmaddaad carabkaaga kaga dhawaaqaysaa khayrka lehe wanaagsan inay miisaanka ku buuxin karto maalinta qiyaamaha. kalimataani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim. labadaa erey waxay leeyihin buu nabigu saddex faa-iido. ilaahay baa jecel, maalinta qiyaamahana miisaanka ayay ku culus yihiin, hadda carabkiina way ku fudud yihiin. marka carabkeenu wax badan buu wadaayo kaloo sharhe dhinaca khayrka aynu ujeedin. aadna waa mahadsantihiin. jazaakum allahu khayra wabaaraka allahu fiikum. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.